kulan wacan halkan waa sahanka TV wararkeena waxa xiligan ugu waaweyn madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo hub badan iyo gaadiid dagaal ka helay Imaaraadka Carabta dawladda federaalka Soomaaliyana waxa laga sugayaa inay qaado tallaabo culus oo Imaaraadka iyo Axmed Madoobe ka dhana faahfaahin ku saabsan ayaan kula wadaagi doonaa sidoo kale Imaaraadka Carabta wuxuu si toos ah ula macaamilayaa Somaliland iyo maamul goboleedyada kale ee dalka ka jira waxaana Imaaraadka uu qatar ku yahay jiritaanka iyo midnimada dadka Soomaaliyeed faahfaahin ku saabsan ayaan kula wadaagi doonaa sidoo kale waxa daawan doontaan Ali Jeyto Cusmaan oo lagu tilmaamay xagjir iyo sidoo kale in uu u gefay dadka Soomaaliyeed wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaana weerar culus ku qaaday Ali Jeyto Cusmaan gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan waan kula wadaagi doonaa waxaad kaloo warkeena ku daawan doontaan wasiir xagjir ah oo Muqdisho u tagtay ama u imaaday qorshe ka dhana Soomaalida ku nool dal ka mid ah Yurub wararkaasi iyo xogo kale ayaan kula wadaagi doonaa haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo saaxiibadeena ka mid noqo haddii aad horeyna la joogtayna like saar muuqaalka oo u share garay saaxiibadaada waxaan ku bilaabayaa warkeena Imaaraadka Carabta ayaa faragelin qaawan ku haya madax banaanida Soomaaliya iyadoona xogo hoose oo la helay ay tilmaamayaan in Axmed Madoobe madaxweynaha maamulka Jubbaland uu hub badan iyo gaadiid dagaal ka helay Imaaraadka Carabta dawladda Soomaaliyana waxa loogu baaqay inay qaado tallaabo culus oo labadan dhinac ka dhana waan eegi doonaa horta Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale macaamilka tooska ah ee uu la sameynayo Somaliland iyo maamul goboleedyada kale laakiin saacadii la soo dhaafay xogo hoose oo la baahiyay ayaa tilmaamaya in Imaaraadka Carabta gaadiid dagaal oo aad u fara badan iyo hub culus uu ku taageeray madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa dhawaan si dhuumaaleys ah ku tagay dalka isu taga Imaaraadka Carabta waxaana uu halkaasi kula kulmay Sheekh Maxamed bin Zayed oo ah madaxweynaha dalka isu taga Imaaraadka Carabta heshiisyo hoose ay halkaasi ku galeen waxaana Axmed Madoobe loogu deeqay oo la siiyay hub casri ah oo aad u badan iyo sidoo kale gaadiid dagaal Imaaraadka Carabta ayaa inta badan waxa uu taageeraa maamul goboleedyada dalka ka jira sida Somaliland Jubbaland iyo Puntland waxaan uu ku taageeraa hub aad u fara badan sanad ka hor Imaaraadka Carabta ayaa gaadiid dagaal iyo sidoo kale hub culus waxa uu siiyay Axmed Madoobe madaxweynaha maamulka Jubbaland iyadoona ilaa iyo hadda hubkaasi iyo gaadiidkaasi dagaal uu haysto Axmed Madoobe xitaa dekada Kismaayo ayaa laga soo dejiyay ma ahayna wax qarsoon sawiradan ayaana uga jeedaan oo waa gawaaridii dagaalka iyo hubka la siiyay Axmed Madoobe sidoo kale muuqaalkan ayaa cadeynaya in Imaaraadka Carabta uu dhowr jeer oo hore Axmed Madoobe madaxweynaha maamulka Jubbaland iyo sidoo kale Puntland ku taageeray gaadiid dagaal iyo sidoo kale hub badan sidoo kale Imaaraadka ayaa ciidamo u tababara maamul goboleedyadan iyadoo sidoo kale uu bixiyo qaarkood dhaqaalaha ku baxaya ama mushaarka ciidamadaasi la siinayo xitaa Jubbaland waxa ka howlgala oo ku sugan ciidamo Imaaraadka Carabta ay tababareen mushaarna ay siiyaan magacooda xitaa Imaaraadka ayaa loogu yeeraa ciidamadaasina waa ciidamo xoogan oo Axmed Madoobe uu ku tashto sidoo kalena kamid ah ciidamada ugu awoodda badan ee Jubbaland iminka ay haysato waana ciidamadii Raas Kamboni ka dagaalamay ee aadka u tababaran sidoo kale Puntland ayuu si taasi la mid ah ciidamo u tababaraa oo uu dhaqaale siiyaa sidoo kale gaadiid dagaal iyo hub culus ayuu Puntland ku taageeray horay waana sawiradan ayaa cadeynaya in Imaaraadku uu markaasi maamul goboleedyadan dhaqaale hub gaadiid iyo wax kastaba siiyo ujeedada Imaaraadka uu ka leeyahay maxay tahay arintan hal ujeedo ayuu Imaaraadka ka leeyahay in ficiladan oo dhan uu sameeyo waana in markaasi Soomaaliya aysan dawlad awood badan yeelan oo maamul goboleedyada oo dhan ay noqdaan kuwa awood leh oo dawladda Soomaaliyeed la dagaalama ama awood isaga celin kara sida Axmed Madoobe uu sameeyay oo kale oo dagaalkii Raas Kamboni waxaad ogeydeen in ciidamadii qaranka lagu soo jabiyay ama dagaal looga adkaaday tani fadeexad ay ku noqotay qarannimada Soomaaliya iyadoona Axmed Madoobe madaxweynaha maamulka Jubbaland uu markaasi la soo baxay hub uu keydinayay in ka badan 15 sano oo halkaasi joogay Axmed Madoobena ilaa iyo hadda wuxuu rabaa inuu ku dagaalamo Jubbaland mana doonayo inuu halkaasi ka baxo Imaaraadka Carabta haddaba waxa uu sidoo kale taageeraa maamul goboleedka Somaliland hadda Imaaraadka waxa ku sugan madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Cirro
shalay dowladda imaaraadka carabta ayaa diyaarad qaas ah waxay u soo dirtay madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro oo safarkiisii ugu horeeyay ugu anbabaxay dalkaasi imaaraadka. xiriirka imaaraadka uu la leeyahay Somaliland ayaa sanado badan soo tixina balse sanadkii 2016 ayay xukuumadda Abu Dhabi bilowday heshiisyo waaweyn oo ay la gashay Hargeysa kuwaasi oo uu kamid ahaa la wareegidda dekedda Berbera iyo qalabaynta qaar kamida cutubiyada laamaha ammaanka. sidoo kale dowladda imaaraadka carabta ayaa xiriir la leh dowlad goboleedyada Puntland sidaan hore idinkugu sheegayba iyo Jubbaland kuwaasi oo ay madaxdooda si joogto ah ugu safraan dalkaasi isla markaana heshiisyo qarsoodi ah iyo kuwa muuqdaba ay la soo galaan imaaraadka carabta. sanadkii 2017 ayay ahayd markii shirkadda DP World oo laga leeyahay dalka imaaraadku ay heshiis gaar ah oo ay kula wareegayso dekedda magaalada Boosaaso ay la gashay dowlad goboleedka Puntland waxaana heshiiskaasi si aqlabiyad leh u diiday baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya balse looma joojin oo horey ayaa looga socday. sidoo kale dowladda imaaraadku waxay tababartaa cutubiyo ka tirsan ciidamada Puntland sidoo kale waxay Abu Dhabi sanadihii dambe xoojinaysay xiriirka ay la leedahay Jubbaland iyo sidoo kale Koonfur Galbeed waxaana la rumaysan yahay in imaaraadku uu kaalin ku leeyahay khilaafka haatan ka dhex aloolsan Jubbaland iyo dowladda federaalka Soomaaliya. dowladda imaaraadka ayaa lagu eedeeyay faragelin gudaha ah oo ay ku sameeyso dalalka ay colaaduhu ka jiraan sida Yemen, Suudaan iyo Liibiya. Soomaaliyana waxa muuqata in looga faa'iideysanayo kala qaybsanaanta siyaasadeed ayadoo xukuumadda Abu Dhabi ay si toos ah ula macaamilayso madaxda dowlad goboleedyada dalka ka jira. dowladda Soomaaliya hadda waxa loogu baaqayaa inay tallaabo degdeg ah qaado oo aysan markaas indhaha ka fiirsan ficilada imaaraadka uu sameynayo iyo sidoo kale tallaabooyinka Axmed Madoobe uu qaadayo. madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe xitaa cunaqabatayn safar ayaa la saaray iyadoo cunaqabatayn safar uu saaran yahay ayuu Axmed Madoobe waxa uu diyaarad gaara ku tagay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya maalmo badan ayuuna ku sugnaa kadibna si dhuumaaleysi ah ayuu imaaraadka carabta ugu safray. dowladda Soomaaliyana waxa muuqata inay tabar u weysay Axmed Madoobe oo ay ka adkaan weysay sidoo kalena ay la heshiin weysay lamana oga halka ay wax ku dambeyn doonaan iyo sida ay wax noqon doonaan laakiin wax kasta oo ka soo kordha macluumaadkan wararkan soo socda ayaad ku daawan doontaan. adigana sidee u aragtaa faragelinta imaaraadka dalkeena uu ku hayo aragtidaada qaybta hoose ayaad nagula wadaagi kartaa. warar kale ayaa inoo soo socda oo goor dhow aad daawan doontaan. markana waxaan eegaynaa Cali Jeyte Cusmaan ayaa weerar culus lagu qaaday. Cali Jeyte Cusmaan gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan ayaa hadal ka soo yeeray xagjir lagu sheegay iyadoona wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliya uu weerar afka ah ku qaaday Cali Jeyte Cusmaan oo sidoo kale ah la taliya xafiiska madaxweynaha ka tirsan ama arrimaha macawisliyada u qaabilsan madaxtooyada Soomaaliya. Cali Jeyte Cusmaan sidaad ogtihiinba maalmo ka hor hadal lama filaan ayaa ka soo yeeray dadka Soomaaliyeedna waa ay ka caroodeen. wuxuu yiri qof kasta oo ku nool dhulka shabaab ay maamulaan waan duqeynaynaa gantaale ayana ku dhufanaynaa. hadalkaasi dadku lama filaan ayuu ku noqday aad ayayna uga caroodeen. Cali Jeyte Cusmaan ilaa ya hadda raaligelin kama bixin hadalkaasi ka soo yeeray iyadoona shacabka ku nool dhulka shabaab ay maamulaan qaarkood ay afduuban yihiin qaarka kalena iyaga ay taageersan yihiin. su'aashu waxay tahay marka laga soo tago kuwa shabaab taageersan kuwa aan shabaabka rabin ee dhulka shabaabka ku nool ee la yiri kama bixi kartiin dhulka aad joogtaan